qof isku dhacday baan noqday dubbe shiish la baan helay dubbe shiish waxa helay wax adag oo iqancinaysa idhax galay markii la fasiray waa run waxaan uma sii dhici karnaa qofkii marka dhamaan raggaan sheegayay saas oo dhumcay tam assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan asxaabta ku soo dhawaada waa YouTube channel-kii walaalkiin KK Films and Vlogs waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo social media arrimaha ka jira ee ah ceebeynta labada fanaan ee Qamar Suugaani iyo Badaragsan ex couple-na ahaan jiray ee hore maaragtaan isku qabay in cid la caayo ama fanaan la caayo maanta waxaan u difaacay wax kale ma ahay wax weeyaan hore way u dhici jirtay in cid la caayo fanaan la caayo laakiin maanta arrinkan waxa uu kalifay inaan u soo jawaabo ama wax ka yara waxa weeyaan arrinku ka duwaya sidii hore dad gooniya abaaraya oo wax jirta si gooniya u caayaya ama aad moodid inaanay tusaale ahaan u Badaragsan oo kale waarag hadii wiilkaba la caayi karaa inaanay waarag beenaynan tayba in gabar Soomaaliyeed tahay inay xuquuq ku leedahay inay u dhig la mid tahay dablaha kale la ilaaliyo waxaan la yaab lahaa inay ku jiraan raggan caayaya ama ceebeynta saaw balaar waliba aad fool xun waligeeba wax ku leeyahay xitaa afkii la soo mariyay yar tahay ragga ka sheegaya inay yihiin rag waaweyn oo waxa asaasay oo waxa ku leeyahay hablo la dhashay inta badan social media caan ku noqday kaliya taa inay yiraahdaan Soomaalida hablaha la daayo iyo dad kale ku dhagay inay leeyihiin habla caayisa laakiin nasiib darro ay ka ahayd inuu jeedo ay gooniye ka adkaysan waayay wixii qalbigooda ku jiray si fool xun u soo caayay social media haddaba intaan u gudagelin kulli ciwaanka hore iyo thumbnail-ka wad ka soo arkayseen cidaan ka hadlayo haddii ay tahay horta markii wada kanalkan ama halkan ku wadaagno saragtid ku wada tahay subscribe wax la yiraahdo jirta iska saar baashaas aad bay qurux badan tahay wada aragteen asaan baa loo bedelaya cadaan oo wax qurux badan sidoo kale like ta video-ga fiican tahay waxaan rajeynayaa inaad idaan warag si gooni inaan cid u difaaciyo ama si gooni laakiin ay iga tahay kaliya ta wixii jira marka qaar runta waa iska yar qaraadhahay laakiin samir u yeeshaa intii ay ku adkaato inta kale ay la jecel runta in ila aragtana wadnaasantiin soo dhawaada horta xaggan kood video-gan kood halkan aan soo dhigay hadda wada aragtaan waxa weeyaan qof isku dhacday baan noqday dubbe shiish la baan helay dubbe shiish la baan helay shiishkana waa garanaysaa meeshii loogu talagalay saa maxaa ku raadayay aan lala seegayn dawiis buusitaayo lama seega dabinka dirba waan hagaago macnaha dubbe shiish la baan helay macnaha waxa helay wax adag oo iqancinaysa idhax galay markii la fasiray waa run waxaan uma sii dhici karnaa qofkii marka dhamaan raggaan sheegayay saas oo dhumcay tamay maaragtay ee ku gafaya inaan Soomaaliyeed oo fanaanada oo ahayd kaliya ama in fankeeda ama la taageero ama la diido laakiin aan ahayn in la xadgudbo oo arrimaha khaaska loo widarto arrimaha khaaska loo dhadhaweyna private-kii haddana loo sii widarto jirkeeda hoosta loo sii karo iska dhaaf meel kale waxaan de cid islaam lagu sameyn karin oo binaadana hatta gaaladan lagu sameyn karin ay sameynayaan raggaas oo dhan waxay social media soo fadhiisteen qoraallo been ay ogyihiin Facebook iyo been laga sameeyay oo marka runta la sheego qofka xaqiiqad doonkii uu ogyahay inaan wax noqon karin oo Badaragsan noqon karin Qamar Suugaani noqon karin iyagu way ogaayeen oo waaba ku dhaaran karaa inay ogaayeen inaanay ahayn sax laakiin kaliya ta inay kaga faa'iideystaan ay maaragtaan ceebeyn ay ka tahay iyagoo doonayay inay dhahaan dadka badanka ku heesa xikmad ka sugaysan ama waxyaabo asaasi afkooda marka qasaas uu yahay saasi u dhaqan xun mana aha dad weligood ka soo hadlay xiriirkoodii hore baabaay Qamar Suugaani iyo Badaragsan weligiisa uu kama soo hadlin dunidiisu iska raacday iyadoo sidoo kale way iska raacday wax u dhow wax ka hadal toona may soo hadal qaadin laakiin dad baa iyagu dib jeedo gooniya ka tahay ragga imika idin sheegay oo dhan haddaad ciwaanadooda tag Facebook YouTube-da tagtaan waxaad ogaanaysaa markaasaan in meesha tahay wax ujeedo kale ku jirto ay ka ballaaran tahay kaliya ta in fees la raadinayo ka ballaaran tahay fees kaliya ma waxba u dheer qofkii macnaha aqligiisu iska furan yahay way fahmi karaa haddii uu soo baarana uu fahmi karaa haddii imika wax badan sii wadado oo isku dayna waxyaabo badan oo cadeyma video kale soo dhigo xogaa way sii yar fool xumaanaysaa xogaa inay laftiin loo la yarko inaan runtu maaragtaa lama wada taabto oo afka ku wada ballaarin maayo laakiin kaliya horta video-gan waxa rabaa inuu yara noqdo digniin oo marka hore la arkay inaan wixii yara taabtoona marka wada sheegin afka ku wada ballaarin maayo waxa jiro dhan laakiin inanta Badaragsan
dadku ha ogaadaan oo dadka ceebeynaya inayna Soomaaliyeed ku ha ogaadaan talabaad ha ogaadaan iyadoo rag hooyo aabay la dhaleen jiraan oo inaan tahay dad eegtaan oo dad u ah oo waxyaabaad ka sheegaysaa inuu adkeysan karin madax xanuun ku ridi karta iyo jab ku ridi karta iyagoo og inaan weynantooda sameyn laakiin kaliya in waxyaabaha laga sheego ay tahay wax aad u xun sida aan adigaaga imika ninka shiino culeeyo kale ku jira bal imika gabadh buu leeyahay hore waxa uu sheegay inaanu raga yahay gabadhiisa oo xumaan la jeclayn waxyaabo noocaas u sheegi jiray laakiin laba isfuray iska dhaaf gabadhiisa laba isfuray horena caan buu waxa uu iska odogtay baa wuxuu sheegay Baraksan buu wuxuu ku leeyahay ama fiidiyowga haddii aad eegtay fiidiyowgiisa wuxuu ka leeyahay wax qof afkiisa soo mari kara ma waa ina Soomaaliyeed buu leeyahay kelmadaasi soo qorto nin bay leedahay qamar suugaan waxba iga muuqaad jiray sarabtu ku xumaa oo saa wuxuu sheegay haddana qoraal kale la soo qoray laga yaabay iyaga laftooda mid kamid soo qoray ba haddana la soo qaato waxa qamar suugaan baa soo jawaabay yiri waxa wax saa inta leeg buu ahaa wax san u ahaa weligeed waxaynu hadday Soomaali nahay hataa xaal lagu bixiyay wuxuu raggaas xaal baa qabanaya rag baa la dhashay hablaha inanta ninka qamar suugaan waa la caay karaa waa iska caado meel waanan laakiin gabadh saa loo galo sharafteeda iyo cidigeeda waa meelaha diinta xitaa qofka dhiiggiisa banaanaysa inaad iska celi waqtiga kaliya iska celin karto qofkaas la dagaalami karto waqtiga marka xagga sharaftaada saa loo galo marka waxaan rabaa fiidiyada ragga gaaban horta dadka qaar iyaguna aaminsan baa laga yaabaa iska wax magaratay in weli aaminsan oo la qamar suugaanuhu toos buu soo qoray iyaduna caadi buu soo qortay wax jira labadoodu way ka soo hadleen iyaduna way ka soo hadashay wax tiri qamar suugaan waxa igama gayo dad baa beeniga sheegay Facebook ma isticmaalo haddii hadda doonaysaan waan idin soo dhigay waa kan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta daafaha caalamka ka joogto iyo bulshooyinka igu xidhanba habeenada waxa la isla yara dhaxmaray page fayga ama magacayga Facebook ee lagu isticmaalo iyo magacaan siin sooran oo ah marwadeyda wixii la doono lagu soo qoro waxaan halkan ka cadeynayaa on horena wax u sheegay oo cadeeyay inaan anagu lahayn isticmaalin marka dadkan waxaan wada aan barabaa in Soomaalidu ogaato marka aragtaan iyagoo calaacalaya ma dhow markii inaan arkaan iyagoo ooyay marka aragtaan inaan Soomaaliyeed baa la dulmay ooyay soo calacalaya inaad ogaataan waxaan wax ka tahay laakiin ujeedadiisu intay ka balaaran tahay oo aydan isbihinta iyo waxyaabaha ay la imanayaan ninka imika Yaasiin leeraa wallahi hadda dib u eegtay fiigiis ilaahay baa ku keenay waxyaabaha ku jiray waxyaabo ku hadlay ninkaas yisidu niyo wada wanaagsan markaad aragtid bilaabay barnaamijka iskaga dhigay wanaagsan waxa kale qof walba isku ornay ninka wanaagsan ay ma sha Allah sana laakiin waxa weyn dad wallahi billahi wali hablo cunugeen ma aha deer rag waxa ma yeelay waa dad hablaqaad caadi iyo habla aad u cuno oo dhibaateeyo daba galo waxa uu leeyahay waad aragtaa inuu inta leeyahay hebel baa waxba sirrita kaga qaadi waayay hebel kala hadasho kii hore dhaama qamar bawsa waxa ay ka sheekeynaa waad aragtaa isagoo og waliba boqolkiiba beentay laakiin wuxuu sameeyay mara Baraksan iyo waxaan dad lama dhalan waxay cidna iska yaala Soomaali ma aha Oromo xuquuquma laamiya bal idinka diiday Soomaali oo haddii aan qadano leedin raggaasi hablaha way caay karaan oo inta way caay karaan oo intaas waa iska waxa la tuuray wala caay karaa leedin de hoos u soo qoro caadi aydan geejino haddii leedin xuquuq bil la leedo hablaha kale la mid Soomaaliyeed oo laga damqado loo kacana de dumarkuna ugu horeeyna ha u kacaan ma dhow marka gabadh kale wax la yeelo wad soo soo yaacay de waa inaan qofkan waxa laga sheegay gogosheedii gogordeeda loo dhaaf xataa waxa la guriga la gali jiray waxaan maqlay rag baa bariyaha soo baxay guriyaha dadka u dhaaf laakiin hadda guriyihii ma gabadh iyo taagan ba diriciid hoosta laga galiyay oo gogorada hoosta laga maray marka arrinkan wax fool xugiyeen ragga aanu aad uma balbalaarin afka laakiin wax lagu ballaariyo oo dhaqan xumadooda la sheego weeyeen dhamaantiin wada salaamaya intaas ku soo kooyay ma rabo inaan afka ku sii ballaariyo wax badan sii taabto